qaar ka mid ah shacabka danyarta ee ku ganacsada suuqa Laascaanood ayaa cabasho ka muujiyay dhismo qadiimi ah oo ay deganaayeen oo si khasab ah lagaga rarayo kaas oo la dhisay xilligii Ingiriiska looguna talagalay in dadka danyarta ay ku ganacsadaan dhismahaas oo lagu dhisay iskaa wax u qabso waxaana haweenka iyo dadka ku ganacsada ee danyarta sheegaan in dhismahaasi ay doonayso haweenay qayb ka ah maamulka ku wareejiyeen waxayna ugu baaqeen cid kasta oo wax ka qaban karta in la garab istaago dadka danyarta ee goobta ku ganacsada sida khasabka ah looga wareejinayo waxa weeye meel markii horeba loo dhisay dadka shacabka ee dumarka ee maxaysatada ah maantana ilaa iyo qarniga laga joogo 60 sano ilaa iyo hadeer dadkii sidii bay u fadhiyaan waxa weeye maalin walba waa lagu soo handadaa dad baa ku soo handada oo nagu soo handada hadaanu nahay dadka masaakiinta ee meesha ku shaqaysta rag iyo dumar bare waxa weeye waraaqab yaan loo keensadaa la yiraahdaa in annaga ale meesha nooga baxo waan dhisananaa waxa weeye Hargeysa hadeer waxay gaadhay in Hargeysa leeyahay warqad baan ka soo saxaxana meesha annaga iskale waxaan u sheeganaa maamulka gobolka in macnaha aysan Hargeysa laga xukumin halkan dawlad hoose ma xukunto waxa weeye guriga dadka masaakiinta lagu ogiyo ku shaqaysta cabatin baan waxaan uga nahay dadka in laga qabto hadii ay hawlaha guud soo maraan iyo hadii kaleba waxa weeye anagu shacabka halka degan baan nahay ninna ka yeeli mayno waxaanu doonaynaa meesha yada hadii ay shacab la siinayo oo loo soo saxeexayo annaga shacab oo deganayno naloogu yimi qof shalay meel kale ka yimi in macnaha uu yiraahdo waan dhisanayaa taa waxaanu ka xignaa wax kale waxa weeye amniga gobolka annagu dad shiciba oo yidhishdad shiciba waxaanu ka dulqaadaynaa meeshii ay ku shaqaysanayeen dadkii masaakiinta ahaa ee caruuraha yaryar haystay agoomaha haystay sirqooyinka haystay dad waalan haystay dad maxay tolo masaakiin oo waxba haysan ku jiraan dumarku halkaas aan ku urursanayn 100 qof baanu nahay rag iyo dumar baanu isku hoos noolnahay waanu soo iyo daba fadhinaa qaarna way horeeyeen qaarna way dambeeyaan bariiska iyaga halkaas aanu ka soo saaranaa bariiska iyaga halkaas aanu kala soo baxnaa yoomkaas qotol yoomka maalintii baanu meesha ugu soo shaqaynaa cid ma barino cid ma barino annaga isku hoos nool in maxay tolo meesha iyadana cidna uma ogolin cidna ma siinayno shicib haday qaadanayo ilaa maxay toy aadan cadde ilaa hadeerto musabbixi madaxweynaha ka yahay maatada halka loo dhisay maanta lahayd xafiisyo ma yahayn caruuraha agoomaha dadka waalan danyarta halkaas aan ku karsanaynay cuntada maalinyoona iibaa nagu dulbaayacan maxay ahayd dawladdu nooma dhisto hay'aduhu waana dhaafaan halkii naloo dhisi lahaa oo naloo hagaajin lahaa ayaa maalin yoon nala ku dalbaayacaa maxay ahayd ka maamul baa hadeer ka jira horena dawladda u soo maray kuwii soo maray ilaa dawladdii aadan ilaa soobe ingiriiskii baa xeradan dhisay agoon bay uga dambeynaysaa waa wada agoon in yar mooyaan curyaamaa lagu haya dad dhibir qabaa lagu haya intaa waxaa wehelisa dadka gacan qabashada leh ee aakhiriya adduunkaba fadliga gaara ilaahay xaggiisa lagaga helo ibtiinkana lagaga helo waa kuwii waxbaa lagu siin jiray dawladihii dalka soo maray waxbaa lagu siin jiray waana u dhisay wixii lagu siinayay waxaa lagu bedelay in waraaqa beera marba Hargeysa laga soo sameeyay mid xoogaa lacag naag dibadda xoogaa lacag karata masaakiinta ayaan yoori lacagta ku dulbaaya goobada Ingiriiska ka tagay waabadooda ku nabad haddii kale eebaa ka dhacaysa xabad baa ka dhacaysa leekay waa arkaysaa sirqaana waxaan hay maanta 8 jir maalinta dhagaxii ugu horeeyay qaado waabkii la dumiye kuwii taagnaa baan ahaa kuwii dhagaxa dhigay baan ahaa kuwii kuuriga ahaa baan ahaa tii boqolka laga qaadayaan ahaa tii kiniga laga qaadayaan ahaa tii tobanka laga qaadayaan ahaa tii laga shanta laga qaadayaan ahaa waxaan dhagaxii ugu horeeyay kuwii dhigaanu nahay maantana dal hooyadii iyo aabihii gargaarkii jireen baana soo hulgamay haddaba
codsanay hana la ka qabto dadka ayaan Cabdilaahi Xasan ayaan anfac Som News TV laascaanood